meel adag baan haystaa oo ilaahay oo mataqaana ila kulmiyada aad moodo inaan meesha ku ogaano xubinka kanaan haysto ilaahay baa hawshu fushanay ma aha hawl anigu aan awood u leeyahay ma aha hawl aan khibro u leeyahay ma aha hawl aan awoodi karo waxa iga sareeyay waa libaax aniguna adoon yar oo daciif bani aadam habaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناسن داوديال كنا سودوا هذا برنامج كان قاركه أو مرتعة وينوجي هاي حاجي محمود ورسمة كل يدي صاحب قارنا وين هاي أو حن كعص صلي بلنا نلو ذاته قصة دي اللباحة هذيك يرجع صاحب هيدين بدين أحمرتي كل يساعدي هراء يقول رنتي كل تلوين بدن فكرة بدن بعد رجع وسوتشي دي سي markii dambana kulay wixii dhacay halkan baada ka warrami doono ka hor dhici maayo soo dhaw xaaji bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo bil ramadaan u joogna oo guriyihii joogna oo harsanayna oo duhurkii soo tukanay yaa waxaa noo yimid wiil qayla geys ah wuxuu yiri saakaanu beeshi beel heblahayd ka soo kacan libaax raadkii baanu aragnay horay baanu u soo raacnay waxbaan nagama soo horreeyay meel baanu kala kulan xabadaan ku ridnay wiilkii sidoo noola yimid si aan ahayn bay kala kulmeen wiilku wuxuu noo keenay markii xabadihii lagu riday iyo baalkii ku soo jeestay wiilashii dagaal ku soo qaaday midna meel buu ku tuuray midna intuu dhulka ku dhuftay iyo halka xagalada saarado waa ku fariistay labadii wiil oo soo hartay midkood baa inta uu watay gadaal kala yimid oo saynta ku dhagay libaaxii iyo ushii la dhacay baalkii waa ka booday wiilkii xagar u dhawaabu galay meel xagar ah oo aan bartiisu ka muuqanin oo meel xabad lagaga rida aan lahayn oo meel laga arki karo aan lahayn iyo galay way tashadeen wiilashii waxay yiraahdeen ninka kan qibala uma aynu lihiino waxaynu ku qaabilay libaaxa kan waxaynu ku qaabilo garan mayno meel aynu kala dagaalanana inoo muuqato aynu qaylageyno rag aynu raadsanay ciidan iyo qalab wiil qaylageysa duhurkii noo yimid talaayay buu yiri waa qayliye wiilkii waa la yaacay nama dhowr iyo sodona oo meelihii isaga yimid wiilka qayladiisa soo raacay oo rag hubaysan u badan yaa soo raacay wiilkii anigii waan fakari waxaan idhi nin baa dhintay baa la yiri baalkii dilanina waa dhaawac labada nin rati ku soo wada qaadimay awr meeshan kala daaqaysan gurigayga inta uu la imid yaan aqalkayga inta furay yaan labadii rati soo guuray dheel caana iyo caag subag ah oo saxinana waan soo qaatay raadkoodii baan soo qaaday nimankii baanu imid oo meel tuban ragii waa caafimaad qabaa wiil yar oo dhaawac ah oo waxyeelay waa jirtaa oo gacan iyo xoogaa ka qabtay wax dhibaato oo keentay ma geystay nimanku waa caafimaad qabaa warrama nabad baan isnir baalkii xagarka kan ku jira inaanu ka tagnana ma rabno inaan meelan kala dagaalanana ma rabno waxaan idhi mar hadduu bahalka cimil ku jiro cimilku lama dagaalamay bar muuqata bahalka lagala dagaalamayo inaga kaxiye meesha toonu kale asaga kullu biyaashe inagu waxba ka qaban mayno waa la diiday inaanu bahalkaas kala qoosano maahe mar hadeedina bahalka ka tagaynin in qoriga idinka aqoon roon baan haybaanay xabada ridideeda waxaad si sameeyeen qoryaha aad wadataan midkood siiyo waa lagu caay waxa la shantaadii halad baa ku daaqayso nin shantii halad baad rabtaa inaad ku xaragooto warmeeter ma sayma ma golo saymood baabaanay mise waa meel xarago oo marka qoriga wuxuu joogay 5 halaad nin qoriga 5 halaad joogay nin shantii halaad baad rabtaa inaad ku xaragooto baan yaa shantaadii halad baan ku daaqayso meeter ma meel xaraga baabaanay mise
waa golo saymood. Saymo waxaa la yiraahdaa meesha colaadu ka samaysantahay ka aloosantahay baa saymeeliye waa golo saymood. wiilashii bahalkii ka tagan waa diiday. bahalkiina meel cilmi lahoon bartiisa la arkaynin buu ku jira. meel loogu geli karana maaha. bahalka waa idin soo saarahayaa iban anaa soo saarahayee waxaad yeeshaan sidaad ula xisaabtami lahaydeen iyo saad uga qayb qaadan lahaydeen adinku ka shaqeeya adinka inay jirtaa maane. halkaasoo kaleeto toon duur ahaan halkaasoo kaleeto waxaan ka soo qaaday baan 3 nin xamuulkood in ay qaadi karaan oo duur ah yaan soo qaaday. madagina waa la baxay. dhanka layrtaana dabkii baan kaga shiday. uuradii iyo bahalkii muxuu duurka dhawaaqiisa iyo jacjacdiisa iyo markuu arkay bahalkii yiri waa lagu hayaa markaasuu ka soo baxay ilaa saaka bariistii iyo markaas casarkii ay tahay duur qabowgii ay tahay halkaasuu ku jiray. mar alla markii qiiqi ku soo baxay oo sanqartii iyo wixii qiiqi uu arkay urkiisii iyo bahalkii dibadda u baxay. libaaxii markaa saasa waxa laga soo saaray geedkii xagarka ahaa ee uu hoostiisa ku jiray. geedkii xagarka ahaa oo uu ku jiray dhexdiisa duurkaas aan dabada kaga soo shiday layrta xageeda aan kaga soo shiday sababtii buu uga baxay. duurka qiiqii iyo duurkii iyo ololkii markuu arkay iyo carara xagarku waa ka baxay. bahalkii oo konkoonsan halkaas oo kale tamarahaya markii ay arkeen iyo bahalkii ku dhigay soo fiiriyo weligood ba niman libaax arkayba maahay. saasun bay u dhowreen inay la dagaalamaan iyo inay mataqaanaa xabad ku ridaan baldaay nin walba ishiisiiba ku qalashay ku angagtay. nimankii waxba ma yeelino waa canaantado raadkiisii baan qaadnay. meel dhaxa markii aanu sii marayno yaa bahalkii haddana aanu aragn xabaday ku rideen waa dhaawacmay. waxaan iridho meesha bannaan buu inoogu imaanayaa. bahalku asagaa aar qaata markii la maago waa aar qaataaye halkaasuu inoogu imaanaya isagoo aar qaadasho ah halka aynu ku sugno bannaanka ina geeyey. inuu dhaawac yahay waabaad sheegaysaa maanu soo cadcadayna baa dhimaanu cadba mar soo goosan waa laga dabayaacay. iyagii soo socday asagii soo noqday oo nimankii ku soo noqday oo dhaawiciisii raba inuu ka qayb qaato ka aar qaato iyo nimankii bahalkii daba ordahaya yaa iska hor yimid. halkaas hawada inta u duulay uu korka kaga yimid waa kala carareen nimankii. wiil meel xoogaa ii jirta joogay uu bahalkii qaatay. waxaan isku hadlay wiilka haddii uu bahalku qaato markuu cantuu hayay markuu qaniin hayay markuu cad goosan hayo ma dhawaaqiisa dhigaysan waa ka daba tagi waa boodi meel boodtin lagu gaari karo meelan orodka ay gaari karo midna ma ahna ilaahay kor buu inta ii fududeeyay yaan bahalkii kor kaga imi asagii wiilkii wata halka madaxa bartankiisa faas dabadi kaga dhuftay. waxaan moodahay inuu qalkii faaska afkiisii inuu ii toosan yahay baan moodahay daabkii baa iga rugmay halkaas maskaxda bartankeedaan kaga dhuftay waa i tuuray halkaas kale igu tuuray. markuu i tuuray iga dabayay isagii hawada soo socdo oo igu soo socdo markaan arkay yaa inta la sugay gacanta afka u geli afkii aniga oo saas igu soo fursana yaan gacanta afka u geli intaas gacanta jeenigaas oo dhan gacantaas oo dhan intaas baadinkii saahi gashay. wuxuu damcay inuu ma la baxo intuu labada jeeni agteeda labadaas dhinac ilaa anigu barbar baan u arko xusulkaas ay mudan labadiisi jeenina labadeedaas dhinac iyo sidaas oo kale iga koreeyaan. afkii uu damcay inuu madaxa igu dhagana gacanta taanba oo hormartay ilaahay gacanta taan afkii u gali. markii uu damcay inuu la baxo yaan saas gacantii xaraka u sameeyay iyo farihii meel halka gulguladiisaas yaan waxaan ka helay meel laaban oo xarig aad moodo ceel in lagu shubahayo 3 lugooda oo kale sidaas oo kale saas
yaan u soo qabsaday markaa afarta farood baan ku soo qabtay ba halkaas ku aadanta micihiisa waa kuwaas halkaas intaas afkiisa ku jirta markii aan soo jiiday asna uu rabo inuu igala baxo afka aan soo qabsaday asna uu jiidanayo oo uu rabo inuu afka kala baxo gacanta afkiisa inuu gacantayda kala baxo markuu doonayo yaan soo dhiftay markaasuu aad ku celisid waa iska qabtay markaa inta ku celisid aad ninka qaadatid buuyay ta afka igu soo yiri markaasan sidaa iskaga qabtay meel adag baan haystaa oo ilaahay oo mataqaana ila kulmiyada aad moodo inaan meesha ku ogaano xubinka kanaan haysto ilaahay baa hawshu fushanay ma aha hawl anigu aan awood u leeyahay ma aha hawl aan khibro u leeyahay ma aha hawl aan awoodi karo waxa iga sareeyay waa libaax aniguna adoon yar oo daciif bani aadam habaana saas markii aan iska qabtay yuu yiri ninka aad afka ku celis afka aad ku celisid ninka qaadatay markaas aan iska qabtay markaasuu aad kala baxday gacanta meesha tudunta waxa ku haysta markaas aan soo qabtay 3 iyo 4 jeer markaan soo qabtay yaa saa u gulgil af labadii buu yiri ma abuu yiri waxaan rajaynay ragii kala firdhaday wuxuun inay soo noqdaan halkaas labadii saacudood intaan dhabarka dhulka dhigtay yaan labadii saas cududood halka iyo halkaas yaan labadeedaas cagood inta halka iyo halka ka saaray baan dhabarkiisa mariya cagfihiisi waxaan ka qoofay inuu cidiyaha igu dilo ila afkiisa ana iyo micidiisi ka nabad galay micidi waa ka nabad galay inuu cidiyaha igu dilo ka baqay libaaxuna jeeyaha iyo cidiyaha waa kii ku hormara bahalkaana haye dilay warbahalkaana haye dilay warbahalkaana haye dilay nin wali wuxuu siir hadaad xabad rido xabadaadu waxay noqon ninkaas libaaxa ruuhayaa micidiisi xabadaadii baa noqon nin walba inuu xabad rido waa ka cabsaday in inta toore iyo loola yimaado xabad dhungelisahna waa laga cabsaday way ka baqeen bahalkii wax badan markaan isku marjadnayn yaan go'aan qaatay waxay bahalka kan waa libaax waa asad wuxuu leeyahay libaax dagaalkii wuxuu keenaa nin la xanto iyo nin la xaraarsho iyo nin la xabaalo saddexdaas uu la yimaadaa baaliye nin waa la xantaa oo waa nin cararay oo waa fulay baa la yiraahdaa ninna waa la xabaalado waa nin dhintay oo micidiisa u dhintay ninna waa nin dhaawacmay oo waa la xaraariyado waa la subagsiiyado waa la baantaado wixii uu u geystay baa laga shafshafeeyaa saddexdaas ay libaax raacdadii leedahay baali nin la xanto iyo nin la xabaalo iyo nin la xaraarsho wuxuu leeyahay xabad aan ka dibin oo aan seeroobin oo aan lala baqin buu wataa laakiin bani aadamka raacayna xabadiisu ama waa ka dibtaa ama waa seerowda ama waa lala baqaa saddexda waa suurtagal baalkii waxaan go'aan ku qaatay intaan iska sidaayo baalka iska tuuro ilaa laba cagood baan ku hayaa dhuuntii iyo afkii iyo wixii iyo madaxii horan aan haysta awoodiisii kaleetana cagahayga saaranta intaan iska tuuray ma halkaas kale ku tuuro waxaan adinku oo kala soocan xisaabtama baalkii markii aan halka ku tuuray iyo soo noqday waan ku soo jeedaa baalkuna gebigiisa il dagan inuu ka helo ma aha adiga oo dhowrahay kuma imaan karo kuma yimaado in allaal inta taqaana oo di waxa la oran jiray libaax niman aqoon baa lax ka rid libaax niman aqoon in allaal inta taqaana weydii adiga oo saa u dhowrahay kuma soo weerari karo kuma imaan karo saa mar hadaad u fiirinayso ishaadu in ka dadbanto uu doonayo marka libaaxii waa iska tuurtay oo waa xaaladii marka halka muxuu sameeyay marka isagu halka markii aan sameeyay oo kala soocanay
يعني nimankii maantoo dhan meesha fooda ku hayay yay xabada ku soo rideen xabadahaas uu dhintay bahalkii horta bahalka intaas xaaladiisu ahay halkaas uu ku dhintay bahalkii ilaahay ragi kale tan aniga dhaawacayga mooyee makrigiisa ilaahay waa ka badbaadiyay waxaana helay shay la yiraahdo ismaqal xumo haddii aan la ismaqlin thawaabka weligeed iyo Allaah waa la gafaa maxaa ismaqalka aanu weyn muxuu ahaa saddex nin oo hargaantiya oo xabada rida oo ugaarsata ayaa nagu jirtay saddexdeedoo waran laanahay qoriyihii way noo diideen nimanka bahalka raadcaynaya qoryaha watay shanta halaado anaga nalagu caaridayo iyo kala baxeeno showlil xabad ridayba weligiisba kuma jirin oo rag baqaya libaax u soo shirtagay rag baqaya oo aan shiishki aan dagaalkiisa aqoonin